manaa ka mid a shacabka degmada Garadag ayaa saaka u dareeray salaada roob doonta iyadoo gabi ahaanba saaka suuqa degmada Garadag uu goobaha ganacsiga iyo kuwa waxbarashada ay xidhnaayeen isla markaana dadku ay u khaasiyeen baryada alle oo kaliya haddaba waxaa xusimada iyadoo salaada roob doonta saaka loo ka dhaxlay madax iyo midjaba isla markaana ay kala soo qayb galeen culimada waaweyn ee degmada maamulka iyo cuqaasha degmada Garadag iyadoo culimadu ay ku baraarjeen dadka salaada ka soo qayb galay inay la baxaan sadaqo ilaahay dartii isla markaana loogu deeqayo dadka danyarta iyadoo degmada Garadag aanay ka digin roobabkii guga isla markaana xoolihii ay ka hayaameen haddaba waxaa dadka danyarta ay ku dhaqan degmada Garadag saameyn ku yeelatay biyo la'aanta baahsan ee ka jirta deegaamada hoostaga degmada Garadag iyadoo degmada Garadag dhexe ay ka cabi jirtay baraaga isla markaana ay haatan baraagihii go'an isla markaana foostada biyaha ay marayso 30,000 oo shilinka Soomaaliland waa marka la helay waxaa haddaba dadweynaha reer Garadag salaadii roob doonta ku jiyay shiikhul beledka degmada Garoonka Iide Cabdisalaam subhanahu wa ta'ala isku dhul dhigno sida daraadeedana Allah subhanahu wa ta'ala khayr badan oo nagu siin doona qodobka waxa weeye masaakiinta iyana ka baqayline isku qorka kadooda shubka waxa ku rahay masaakiinta dirgindo inagu isaaxnay oo masaakiinta dirgindo markay tukano ilaahay roobka inoo shubaya wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inaynu ku dadaalno maadaama xilli roobaadkii tahay dhinaca nadaafadda waa minadiibaad nadaafaddu iimaanka waa ka badh iimaanka barkiiba waa nisful iimaan baa layidhi waata dee culimmadii nadaafaddu waa nisful iimaan innagana waxaad moodaa nadaafad waxaad dareentaa marka aad nadaafadda meel kaga dhacayso inaad iimaankii meel kaga dhacayso waxay dadaa in laga qabsada waynu garanaynaa Ummadda TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland